mas-uuliyiinta heer qaran iyo heer gobol ee xisbiga mucaaradka ee UCIDE oo maanta warbaahinta kula hadlay xarunta dhexe xisbiga mucaaradka ah ee UCIDE uu ku leeyahay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxay baaq u direen inay u soo diyaar garoobaan xubnaha golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka ee UCIDE shirka golaha dhexe ee xisbiga UCIDE ee maalmaha soo socda ka bilaami doona magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. xogayaha xisbiga mucaaradka ee UCIDE gobolka Awdal Xasan Cabdikariin Miicaad ayaa waxa uu sidoo kale dhaliilo soo jeediyay maayirka degmada Boorama waxaana uu yiri maanta waxa shirka xisbiga cadaaladda iyo daryeelka UCID shirkiisa golaha dhexe uu ka furmi doonaa 28 bisha 8aad 2019 ka furmi doona magaalada madaxda Burco iyo ka furmi doona shirkaasi oo socon doona muddo 2 cisho ah waxaana isugu iman doona golaha dhexe xisbiga UCID dhamaantii ayaa isugu iman doona waxaana laga tashan doonaa ajendaha xisbiga qorshayaashiisa ayaa laga tashan doonaa shirkaasi gobolka Awdal waxa uu ka qayb gali doona mas'uuliyiin golaha dhexe ku jira golaha fulinta ku jira mas'uuliyada ugu sareysa ku jira hadaba bulshooyinka gobolka Awdal waxaan u sheegaynaa in xisbiga cadaaladda iyo daryeelka UCID uu diyaar u yahay in doorasho qabsoonto waxaan leeyahay oon u soo jeesanayaa ka gobol ahaan caasimadii degmada Boorama maayirkeedii wuxuu noqday maayir afmishaar ah oo siyaasiyiinta xisbiyada qaranka sida habeen dhawid aan daawanayay xisbiga wadani gudoomiyihiisa maxamed inuu afkii suuqdiga ee suuqa laga hadlayay xayraamintu ku hadlaysay inuu kula hadlayay maayirka Boorama oo isagu yiri waa nin bilaa camal ah adiga iyo camalka ku sameeyay shicib baa ku sameeyay shicib baa ku doortay shalay markii maayirnimada laga qaaday adiga waa adigii bilaa camal dhul ku soo dhacay ee lagu ogaa madaxweynaha dalka Soomaaliland waxa lagu dhiibay xukuumad isku dhan kulmiyaba lagu wada wareejiyay maantana waxa tahli kari laadahay inaad doorasho qabato waxaana leeyahay wasaaradii arrimaha gudaha ee dalkani waa taa gabaabsidee maanta Buuhoodle ama Sanaag Bari maanta laga taagay caalanka Puntland laga taagay maxamed kaayin waxaan aaminsanahay inuu mas'uul xisbi uu igu joogtay inuu ugu joogin mas'uul siyaasadeed oo dalkan qarankan u shaqeyn kara inuuna ahayn sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay xogayaha xuquuqul insaanka ee xisbiga mucaaradka ee UCID waxaana uu tilmaamay gobolka waad aragteen barasa baa jooga wuxuu ahaa madaxweynihii gobolka waxa la yixu soo kordhinayo arkimaysa tabayraatay saga agaasimayaashu ma laha xafiisyo waa ninkii u dhisi lahaa ee u qeeliye lahaa ee u raadcin lahaa way marka waxaan leenahay waa in goboladana aad loogu fiirsadaa dalkii iyo dadkii dhameystirnaana dib la iskugu soo ceshaa haddii la rabo xukuumadda Soomaaliland si shaqay Sikris Xane wararka warbaahinta SBC magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal.